horta madaxweynuhu waxa weeye teerarkii koowaad ayuu ku jiraa wadannada dimuqraadigeena madaxweynaha laba teeran ayaa la doortaa teerankii labaad weli ma dhowa sanad iyo siyaado ayaa ka haray sida dee innaga nidaamkeena iyo dastuurkeenu yahay madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay laba goor inuu isa soo sharaxo meelna kumaynaan maqal madaxweynuhu inuu yidhi isma soo sharaxayo kolkaa golaha dhaxana weli xisbiga kulmiye weli ma samaysna kolka golaha dhexe la sameeyo golaha dhexe uu fadhiisto markaasi ayay dee habboonta qofkii musharaxi inuu isxadeeyo iminka wixii ka horeeya de waa wax lagu degdegay la muuqan heerka golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada sameeya haddii uu dee golahu diido xagga u bato ayuunbaa la raacaya madaxweynuna dee xaq buu leeyahay isagoo dumarka qadarinaya inuu kootaha loo qarriro uu yidhaahdo wax baan maaha wadano fara badan oo afrikaan oo weli aan u bislaan dumarku inay xil weyn ay qabtaan ayaa maaragtay koota la siiya madax dhaqameedka loo yimid waynu soo dhaweynaynaa waayo siyaasiin maaha oo odayaal soomaaliyeed weeyaan innaguba berigii dhibaatada ay ku jirtay gaajadu ay ka dhacday madax dhaqameed iyo lacagba waynu u diray kolkaa in la iskaashado waa loo baahan yahay de waxay la yimaadaan unbaynu eegayna mustaqbalka xisbigu waa mid wanaagsan ayuuna ahaanaya sharciga xisbiga iyo ta wadankaba dee waa la isla sharaxi karaa madaxweynaha muuse biixuun maahee golaha dhexe ninkuu ku jiro idin han uu ku jiro dee wuu odhanaya waa musharax baan ahay laakiin ujeeddadu waxa weeyaan sidii horumarinta beesha iyo dhulkay degan tahay loo samayn lahaa waa mid waafaqsan jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaana horumarkeeda